qisada Thomas Edward Lawrence isla markaana loo yaqaano Thomas ka Carbeed waa shakhsi qayb ka ahaa qisadii ay dawladdii Cusmaaniyiinta kaga soo baxday dhulka Carbeed kadib markii ay la kulantay kacdoon la maleegay. Thomas ayaa qisadiisu bilaabatay kadib markii dawladda Britain ay ku dartay jaajuusiin ay u dirtay dhulka Carbeed oo ay markaa ka talinaysay dawladdii Cusmaaniyiinta. Tani ayaana ka saaciday dawladda Britain inay inta badan gacanta ku dhigto bariga dhexe, sidoo kalena Carabta inay u kala qaybiso dawlado yaryar. Thomas Edward wuxuu Wales ku dhashay 1888 wuxuuna jaamacadda Oxford ka bartay injineeriyadda, istiraatiijiyadda iyo taariikhda ciidannimo. Asigoo ku guda jira sahmintiisa 1909 wuxuu booqday Suuriya iyo Falastiin. Asigoo Suuriya ku sugnaa muddo 3 sano ah, wuxuu bartay luqadda Carabiga wuxuuna aad u dhexgalay Carabtii waagaasi nooleed. Asigoo ka qayb qaatay buunbuuninta dareenkii Carabta ee ka dhanka ahaa Cusmaaniyiinta. Kadib markii uu bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka, waxay Britain bilowday in ay ka faa'iideysato sirdoonkeedii joogay dhulka Carbeed. Thomas wuxuu ahaa mid xifdisan saldhigyada ciidan ee Cusmaaniyiinta, wuxuuna ahaa mid kiciya Carabta asigoo u sheegi jiray in la Turkiyeynayo. Wuxuu qayb weyn ka qaatay kacdoonkii Carabta ee ku wajahnaa Cusmaaniyiinta ee bilowday 1916 isla markaana uu hogaaminayay Sharif Hussein. Thomas ayaa ahaa mid dhiirigeliya Carabta una sheega in dagaalku uusan ahayn mid diin ku salaysan, laakiin uu yahay mid qowmiyad. Wuxuuna isku rogay kacdoonka mid Carbeed taasoo dhalisay in Ingiriisku uu ku garab istaago saanad ciidan. Ugu dambeynna Thomas wuxuu noqday la taliyaha dhanka ciidanka iyo siyaasadda ee Amir Faisal oo ka mid ahaa hogaamiyaashii ka hooseeyay Sharif Hussein. Wuxuuna Faisal kacdoonka ka waday magaalada Makka. Quwadihii Carabta waxay ku guuleysteen inay ka awood roonaadaan Cusmaaniyiintii ayagoo taageero xooggan ka helaya Ingiriiska. Carabtu waxay filayeen inay ismaamuli doonaan iskana xoreeyeen Cusmaaniyiintii ay u arkayeen in ay yihiin kuwa xoog ku haysta. Balse 1916 waxaa dhacay heshiis qarsoodi ah oo lagu magacaabo Sykes-Picot isla markaana dhex maray Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka. Dawladahan ayaana ku heshiiyey in ay qaybsadaan dhulka Carbeed ee laga saaray ciidankii Cusmaaniyiinta. Wuxuuna waaga ku baryay Carabtii kacdoonka waday isla markaana aaminsaneed inay xornimo heli doonaan. Waxayna sii fajiceen 2 November 1917 kadib markii uu Ingiriisku siiyay Yahuudda dhulka Falastiin. Ingiriiska ayaa xusa ballanka Balfour ee Yahuudda lagu siiyay Falastiin, asigoona ilaa haatan ku faana inuu dhisay dawladda isku magacaawday Israa'iil.